markii ugu horreysay ayay ahayd in aan safar uga baxo galbeedka Somaliland. safarkaygani waxa uu ku wajahnaa dhanka iyo magaalada Saylac ee xarunta gobolka Zalal. waxaan sii maray wadooyin kala duwan kuwaasi oo aan ku arkay waxyaabo kala duwan. socdaalkii Saylac waxa uu ahaa mid runtii aad u cajiib badan. jawigu waxa uu ahaa mid aad u qurux badan intii aan wadada ku sii jiray. dhowr wado ayaan kala maray iyo tuulooyin kala duwan oo aan markii ugu horreysay aan soo bartay. tanina waxay ka dhigan tahay hore oo loo yidhi nimaan dhul arag dhaayala. Saylac waan sii dhaafay oo waxaan sii tegay magaalada caanka ah ee Lowyacado oo ah xuduudda kala qaybisa Somaliland iyo Jamhuuriyadda Djibouti. magaalo xeebeedka Saylac markii aan gudaha u galay waxa ay indhahaygu qabteen goobo taariikhi ah oo intooda badan uu burbur baahsan ka muuqdo. goobahaasi ayaa ah kuwa caan ah oo soo jiray muddo qarniyo ah oo magaalada Saylac waxay ahayd magaalo taariikhdeedu ay aad u fog tahay. goobaha aan arkay waxa ka mid ahaa aqalkan isa saaran ee idin muuqda iyo sidoo kale mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Saylac ee dhisnaa muddo qarniyo ka hor oo isna idin muuqda. masjidkii qiblataynka oo isagu burburay ayaan sidoo kale indhahayga ku soo arkay. magaalada Saylac waa magaalo qadiimiya oo soo jirtay ilaa iyo qarnigii 19aad. waana magaalo ay diinta Islaamku ka soo gashay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. kadib intii aan Saylac ku sugnaa jawigu waxa uu ahaa mid aad u degan isla markaana naftaydu waxay dareemaysay deganaanshiyo iyo sidoo kale farxad aad u reyn badan maadaama ay ahayd markii ugu horreysay ee aan indhahayga ku soo arko magaalo xeebeedka Saylac. dhanka kale waxaan tagay badda bariga ku taala ee magaalada Saylac. badani ayaa waxay ahayd mid iyadu marba marka ka sii dambaysa sii kacayay isla markaana mowjadaheegu ay isgaraacayeen. waxaanay tani ahayd markii ugu horreysay ee aan arko bad badda waxa la oran jiray biyaheegu waa ay dhanaan yihiin mowjadaheeguna waa ay isgaraacaan isla markaana guux ayay samaysaa. balse waxaasi oo dhan indhahayga ayaan ku soo arkay. haddaba markii aan badda agteeda joogay waxa ii suurta gashay in aan baddaasi dhex galo si aan u soo maydho waayo waa markii ugu horreysay ee aan arko bad. magaalada qadiimiga ah ee Saylac waa magaalo ganacsiyeed inta badan laga dhoofiyo shidaalka isla markaana loo soo dhoofiyo. magaalada intii aan ku sugnaa run ahaantii waxay ahayd magaalo aad u soo jiidasho badan isla markaana jawigeegu uu aad isaga deganaa. Saylac waa magaalo qadiimi ah, waa magaalo soo jireena, waa magaalo iyadoo caan ka ah guud ahaanba geyga Soomaaliyeed. safarkii Saylac waxa uu ahaa safar aad u raaxo badan. magaalada Lowyacado waa magaalo iyaduna sidoo kale aad u jawi macaan isla markaana waxay ahayd magaalo iyaduna aan arkay markii ugu horreysay. Saylac magaalo qadiimi ah oo soo jireena waa magaalo run ahaantii marka aad adigu lugahaaga aad dhex dhigto aad uga helayso. waa nuux kadiye magaalada Saylac.